بسم الله الرحمن الرحيم. maantay waxaan halkaa u joognaa waa tacsidii cabdikariim faarax qaari. cabdikariim faarax qaari iyo anugu wax badan baa soo wada shaqaynay. 60kii iyo 1dii baa shaqada dowladda raadii muqdisona la geeyey, anigana lagada geysay, asagana xildhibaan baa geeyey. imtixaanka laakiin ninkii ka qaaday oo uu yidhi hees heble ii tun markii ugu horeysay anigu ahaa. xasuus ii tun buu yidhi, waa garanayaa. kabanaan tumanayay baan markaas aan ugu barwaariyey, okay baa tahay baan idhi. marka wax badan baa isla soo marnay, wax badan buu soo shaqeeyey. wuxuu ahaa nin kaftan badan, nin cayaar badan. hadduu sheekada marka la sheekeysanayo wuxuu ahaa nin mulaxan ah oo heesaha, inkastoo markii hore heesahan ku bilowday aniga isaguba, isagana heesihii mar dambuu ka bedeshay, mulaxan buu isku bedelay. mulaxankaas waa ninka cododka dhisa. marka heesihii uu la xameeyena waad garanaysaanoo kuwo badan baa ka mid ah. waxaa ka mida beledweynaha ka mida, sababo kale hamoodina ka mida, iyo kuwo kaloo badan. maanta tacsidiisa aan iskugu nimid, ilaahay waxaan ka waryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo. ilaahay jannada inuu kaga waraabiyo, inaan u ducayno baan iskugu nimid meesha tan. marka annagana ilaahay gadaashiisa nama fidmeeyo. haddee wax badan oo kale oo ragna way iga dambeeyaan. shaqadiisii badnayd iyo hawshiisii badnayd iyo wixiisina wax badan buu soo shaqaynayo. aniga isagu wax yar baan yar aan isku jirnay, anaa xoogaa yar ka soo reeyay bilo. marka allah ha u naxariisto cabdikariim faarax qaaray, ilaahay ha u naxariisto, jannada allah ka waraabiyo. hey fanaaniinta oo dhan iyo dadka soomaaliyeed iyo dhashiisii iyo intii dhalay iyo intii